galmudug annaga si loo sheegayba waxaan nahay wafdi reer xaaji saleebaana oo aan anigu hogaaminayey oo magaalada muqdisho ka soo kacatina saakay ayaan ahayn inteennaanna waxaana casuuntay wasaaradda arrimaha gudaha ayaana casuuntay casuumaad rasmiya ayaan ku nimid waxaana nahay saxiixayaashiyaan nahay iyo odayaashii iyo dad maamuus iyo magac leh sidaasaan ku nimid martiqaadka rasmiga oo wasaaradda arrimaha gudaha xaggeeda ayaana annaga ma garanaysaa ku nimid sababta aan dhuusamareeb u soo gaarnayna waxay tahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre ku soo hormariddii uu magaalada dhuusamareeb ku soo hormaray xarunta caasimadda galmudug state ee 2 bilood muddo ah uu fadhiyey ayaa waxay keentay ama waxay kaliftay bacdallaahi maanta inaan dhuusamareeb nimaadno waxaana u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyey sidii ummadda reer galmudug sidii ummadda soomaaliyeed sidii ma garanaysaa meeshaan la isku imaan lahaa galmudug 3 safar ayay soo gashay safarkii koowaad 2007 ee galmudug la sameeyey gaalkacyaa lagu sameeyey xarunta waxaa lagu sameeyey gobolka mudug safarkii labaadna 2015 ee galmudug la sameeyey waxaana lagu sameeyey magaalada cayaadaha lagu dhisay galmudug maantana galmudugtii saddexaad ay ku socotaa waxaana la rabaa haddii ilaahay qadaro in lagu dhiso maamulkaasoo caasimadda galmudug ka dhacaya taasi waxaan rabaa marka inaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyey galmudug amase dhuusamareeb maanta inay noqoto xarun ciidamadii soomaaliyeed milatarigii soomaaliyeed biliiskii soomaaliyeed hay-addii nabad sugiddu ummaddii soomaaliyeed ay ku soo dhiirato oo maanta la wada leeyaha nagana dhaxayda ra'iisul wasaare maadaa kaa gaartaan leenahay khayr badanna allah ku waafajiyo